madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo saxaafadda la hadlayay ayaa ka tacsiyay dadkii ay waxyeeladu ka soo gaartay qaraxyadii iyo weeraradii al-shabaab ay ku qaadeen hoteelka Cascasle isagoona ka warbixiyay sida ay wax u dhaceen. madaxweynuhu waxa uu sheegay in 26 qof ay ku nafwaayeen weerarka halka 56 kalena ay ku dhaawacmeen isagoona sheegay in dadka dhintay ay ku jiraan qaar haysta jinsiyadaha dalalka kala ah 3 qof oo dalka Kenya ah 1 qof oo dalka Canada ah 1 qof oo dalka Britain ah 2 qof oo Mareykanka ah iyo 3 qof oo dalka Tanzania. madaxweynuhu waxa kale uu ka dhawaajiyay in 2 qof oo u dhalatay wadanka Shiinaha ay kamid yihiin dadka dhaawacmay kuwaas oo hadda xaaladoodu ay aad u wanaagsan tahay. madaxweynaha ayaa si gaar ah tacsi uga diray eheladii uu ka baxay xildhibaan hore haddana ahaa musharax u baratamaya xilka madaxtinimada ee Jubbaland xildhibaan Shuuriye iyo Ilaahay ha u naxariistee wasiir hore oo Jubbaland ah Jaamac Fariid iyo marwadiisa Hodan Naaleeye isagoona Ilaahay uga baryay dhammaan dadkii ku dhintay in uu jannadii Firdawsa ka waraabiyo kuwa dhaawaca ahna oo waxa uu u rajeeyay caafimaad taam ah. madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa sheegay in ragga weerarka soo qaaday ay ahaayeen 4 qof kuwaas mid kamid ah oo hoteelka isku qarxiyay mid kalena isaga oo nool ay ciidamada ammaanku ay gacanta ku dhigeen halka labada kalena toogasho lagu dilay. madaxweynaha ayaa shacabka reer Kismaayo uga digay in ay ka fogaadaan goobaha falalkan oo kala ay ka dhacaan oo ay ka dheeraadaan si aynan khasaaruhu u sii kordhin. waxa uu madaxweynuhu ammaanay dadaalada ay muujiyeen ciidamada ammaanka oo dad fara badan ka soo badbaadiyay hoteelka sidoo kalena waqti kooban ku soo afjaray kooxdii weerarka ku soo qaaday wuxuuna intaasi ku daray in ammaanka ay gacan bir ah lagu qaban doono isagoona faray hay'adaha ammaanka in ay xoojiyaan sugidda ammaanka. dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo bulshada caalamka ayuu madaxweynuhu ugu baaqay in ay ka qayb qaataan gurmadka ay dowlad goboleedka Jubbaland u fidinayso dadka ay waxyeeladu gaadhay isagoona u mahadceliyay dowladaha iyo dhammaanba dhinacyada la qaybsaday Jubbaland tiraanyada. madaxweynaha waxa uu xusay in warbixin dheeraad ah oo la xiriirta sida ay wax u dhaceen uu dhawaan Jubbaland soo saarayso kadib markii hay'adaha ammaanka ay dhameeyaan baaritaanka ay wadaan taasoo la xidhiidha waxyaabaha xilligan ku soo beegay falkan maadaama Kismaayo ammaankeedu uu muddooyinka u dambeeyay oo ahaa mid la isku halayn karo. dhanka kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa tacsi u diray qoyskii iyo eheladii muwaadiniintii Soomaaliyeed ee ku nafwaayay weerarkii ka dhacay magaalada Kismaayo. madaxweynaha ayaa u rajeeyay dadka dhaawacyadu ka soo gaareen weerarkaani in uu Ilaahay u boogadhayo isagoona xukuumadda Federaalka Soomaaliya ku booriyay in ay si degdeg gurmad caafimaad ugu fidiyaan dadka ay culus tahay xaaladooda caafimaad. sidoo kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tacsi u diray dadkii shacabka ahaa ee lagu laayay weerarkii iyo qaraxyadii lagu qaaday hoteelka Cascasle ee magaalada Kismaayo. warka ka soo baxay madaxweynihii hore ee dalka ayaa loogu baaqay shacabka Soomaaliyeed midnimada iyo ka hortagga weerarada al-shabaab. xarakada al-shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadda qaraxyada iyo weerarka tooska ah ee lagu qaaday hoteelka Cascasle ee ku yaala gudaha magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meel gaarka Jubbaland.